taladu inay noqoto talo qof walba ka timaada meesha ku habbooneedna loo gudbiyo xaruntu marka waxay u dhisan tahay inay talada ummadda Soomaaliyeed meel kasta iyo qayb kasta ay tahay laga soo ururiyo cilmi ahaan loo soo ururiyo fikradna la jeediyo doodana la sameeyo tan oo kale ay ka mid tahay oo doodaha ay tahay dadku in iyagu laftigoodu ay bartaan hadda saan u fadhino saaka sideen u fadhiisan jirnay way ka duwan tahay waxayna uga duwan tahay waa waxa la yiraahdo town hall meeting ummaddu way isla soo hor fadhiisanaysaa nin walba xaq uu leeyahay inuu wixii hore soo jeediyo oo ma aha qof kaliya intuu halkaas soo istaago inta kalena ay dhageysanayso aan iswareysano wax isweydiino taladana qaadano taladana hal ururiyo taladana meesha ku habboonayd hal geeyo marka waxaan rabnaa inaad fahantaan Soomaali waxa ay maraysaa inay dawlad rasmi tahay waxay tahay maanta dib u dhacday dhibtiisa waqtiga laga bixi lahaa la joogaa waxyaalaha marka aragno inaad nala fahantaan waxay tahay waxayaan marka la xarunta tala soo jeedinta ama Somali think tank waxa aad arkaysaa inuu leeyahay hay'ad ku taala Mareykan ayaa Soomaali taladeedii waxay ku ururisay waxaas hay'ad ku taala Ethiopia ayaa Soomaali waxay tiri hay'adda asaasan Soomaali ugu talanay hay'ad ku taala Ingiriiska ayaa waxay tiri inaga marka inaynu fikirno mahane inagu ma fikiri karno miya marka waxa la rabaa dadku bal inaynu cagaha ku istaagno aynu taladeena gaarno oo wixii inaga aan isleenahay ummadeena iyo dhaqankeena iyo diinteena iyo caadooyinkeena lahayd ayay lagu meel maraya weeyaan waxa xaruntan ahaan dibadda loo asaasay loo istaagay marka wax kasta oo Soomaali marka la taago dhaqan waxa loo leeyahay in marka hore culays badan la saaro magacyo badan loo sheego waxa weeyaan anagu qolo aan ku tiirsanahay iyo meel aanu hadda aan leenahay gudo iyo dibadba annaga isku tashanay qolo aanu hadda ku tashanay oo kale tama jirta aan Ilaahay ahaan taana waxaan kaga fogaanaynaa dawlad ahaan cudur ahaan aan isleenahay yaan maxay ahayd iyadoo bilow ah turtaba aan maaragtay la oran halkaas sidii wixii la sameyn jiray hadday hadal noqotana hadal diyaar baan nahay bil kastana haddii alla yiraahdo haddaan ka soo hormarina dooda waa la furaya dooda noqonaysa maantana dooda aanu maaragtay halkan loo fadhiyo waa dood qaran laakiin dood qaran bil walba waxaan ka soo dhex saaraynaa in wax laga doodo wixii markaa muhiim ah oo markaa loo baahan yahay marka maanta haddii inay tahay tii ugu horeysay doodii qaran waxaanu ka dhignay in muxuu ahaa dawladda qarankeena oo dawladnimada ah sharaftiisii iyo karaamadiisii seeba dib loogu soo celin karaya oo loo samata bixin karaya waa topic weyn oo furan oo sharaftiisii qiimihiisa leh daafurna u noqon karay doodaha la bilaabay oo ay maxay ahayd think tank Soomaalida ah ay maanta kow ay garatay marka anagu waxaanu rabnaa inaan tusaaleyno waxa weeyaan nina malax qolana malax inaga iskale laakiin waxaan rabnaa qolada maxay ahayd haddii ay dadku ay yihiin dawladdan ay tahay wixii aanu soo ururino dawladda waa la qaybsanaynaa talo waa loo gudbinayaa dhinac kasta noqoto hadday noqoto hadda socialka hadday noqoto xagga hadday amniga noqoto meel walba dadka aqoontu leh ayaa tala ka bixin kara waa la weydiinaya maxaa laga tashanaya inagoo kala ka tashanayna wixii la ururiya markaa la gudbinaya hadday noqoto qolooyin mucaarada waa la oranayaa maxaa weeye waxa aad ka mucaaradadaad sheeganaysaan maxay tahay nooceeday tahay qaabkee mucaarad loo samayn karaya qolo aan lala hadlayn haba yaraatay ma jirto marka anagu waxaan u taaganahay oo aanu leenahay Soomaali maanta aynu isku tashano aynu maxay caqligeena ana ragga professorada oo aqoonta leh odayaasheena maaragtay isimada ah oo iyaguna raggii waxaan soo dhisay ah Soomaali ay ku soo gaadhay halka culimada iyo hooyooyinkeen waa gabdhihii walaalaheena maxaasaskeen oo iyaguna halkan la fadhiya oo aan u aragnay inay yihiin la'aantood inaan waxba qabsoonayn iyo aqoon-yahanka iyo xarunta iyaduna u aaba
intuba haddii gacmaha la isqabsado waxaan u malaynayaa oo siyaasiyiinteena oo maanta ragga halkan ay nagala joogaan maxamed cabdi yuusuf ilaahay cimri dheer iyo caafimaad ha siiyo oo shaqsi soomaaliya ku caanbaxay isaga iyo muxuu ahaa guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi oo mar walba slogan u tahay soomaaliya toosa ama SOS dib ha loo soo celiyo iyo guddoomiyihii gobolka tarsan aniga saaxiibka si gaar ahaayo aan siyaalo badan saaxiib ku ahayn markii la yaraa iyo mar kastaba aanu ahayn bulshadii ama sportska dhinaceeda ka soo wada jeeday oo isna intuu joogay gobolka runtii iyo bulshada qaybteeda intuu wuxuu ka yahay ayaa iguna martino ah waxaan rabaa oo kaleeto inaan kaga faa'iidaysto mahad celiyo oo weliba si geesinimo ragnimo aan weelino madaxda qaranka mas-uuliyiinta qaranka waxaan leenahay intay hawsha ku jiraan kuraasta inoo fadhiyaan sharaf iyo ciis bay inaga mudan yihiin soomaalinadu xayaan kursiga marba nin baa ku fadhiya kuraastaa lagu fadhiyana waa la tegaya waana laga degayaa muxuu ahaa gobolka inay ku nooleen xamar oo kaleeto guddoomiyaha gobolka oo kaleeto banaadir waxaanu leenahay waa dadka mas-uuliyiinta waddanka aan rabnay inaan maxad u celino hawsha ay wadaan iyo siday tahay wixii ku saabsan in la hadlana waxaanu jecelnahay inay constructive noqoto macnaha si wax dhis ah inay noqoto anigu hay-adeydu marka waxaanu leenahay kusoo dhawaada haddii hay-adaha markaa sideedaba la isku ekeysiyaa mid lamid ah haddaad aragtano meelaha uun magacyada ay iska egyihiin waxaa laga yaabaa inay shaqadii ku kala duwannahay laakiin ceeb maaha qofka haddii uun isku dayo waxaagi wax lamid in la sameeyo oo la ismuujiyo marka laakiin waa sixi doonaayo haddii muddo lagu sii jiro iyadaa iskala saxayso qoladu shaqaday qabato ayaa qolada kale ka duweysa ee wax ceebaala ma laha in qof walba maaragtay uu isku dayo inuu waddanka wax u qabto meel baa lagu soo wada jeesanaya marka waxaan kaloo halkan aan uga faaidaysanaya fursadayda maanta ah muxuu ahaa waa maalin hawadii soomaaliyeed lasoo celinayo maadaama aniguna xoogaa aan ku adkeysanayo kana casunahay xagga laakiin labada hadday noqotay tan aan maanta joogay oo aan maaragtay culayskeedu xaggan aan soo saaray laakiin waa maalin taariikhda 28 December in Soomaaliya maanta hawadeeda dib ugu soo noqoto muddo dheer waxaana fiican ummadda Soomaaliyeed inay dareento sida taladan hadda aan sheegin oo kaleeto waxa wixii dadku soo qabtay ama madaxweynayaasha noqdeen ama ra'iisul wasaaraha noqdeen ama wasiiradii ama gaasmeyaasha guud in kulli ay mudan yihiin in la xuso waxaan uga sii halkan tacsi uga dareeyaa raggii shaqaalaha ahaayo guusha weyn oo maanta lagu faanayo soo hooyey raggii caawa naga hooseeyaan oo lagu laayay oo horena looga digay markaanu shaqada ku haynay waryaan laynagu layn waryaan raggaas maxay ahayd hala dhowro anagoo og baa raggii la laayay oo ilaa lambar 4 lagu laayay 4 engineer kii mas-uuliyiinta ku ahaana qaar lagu dhaaway marka waa maalin taariikh leh loo baahan yahay in la xuso ana hawsheeda kalena waa sii wadanaynaa marka waxaan leeyahay think tank Somali think tank ha guulaysato garabna lagu siiya waxaana filaynaa haddii mustaqbalka alla yidhaa wax qof leeyahay inaan ahayn oo aad garataan oo aad dareentaan wax Soomaali oo dhan inay leedahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh